السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا channel كيني حاشا فيجوال channel كونان كبرانو وحي اللي حيدا multimedia هاردن هاتين نقاط فوتوشوب بريمير إلا افتر افكتي مقاعيقو محمد حاشي وحان اللي كسو دوادا channel كا سبسكرايب يا لايك تبا نوصار هدي أنا يقول tutorials كيني نو سعودي وحي نو سعودي شانيتما tutorial وهاي نمك قادنا لبا tutorial كميدا oo kii goorey haasa photoshop loo download kareysto kii labaadna oo haasida sawirada loo furo loo save kareeyo in yar editing loo sameeyo inaga waxoogaa ka aragnay layerska maanta waxaan qaadanaynaa tutorialkeeni saddexaad oo ku saabsan waxa loo yaqaano layerska iyo layer mask labada option ba waynu qaadanaynaa maanta layerskan bilowno layerska waxa weeyaan waxa loo yaqaano foundation of photoshop maalin walba layerskaasaan ka hadlaa laakiin waa very important inaad fahanto layersku saakan idiga muuqata waxay leeyihiin wax loo yaqaano aragtida ama isha yar waa la baktiyaa layerka ugu hooseeya hadana furno waa cadaan circle baa ku xiga fargees baa ku xiga ujeeda buluuga circle akhtara ku xiga hadana triangle brown ku xiga macnaheedu waxa weeyaan sida buug oo kale buug si waraaqo kala sarsareeyaan ayuu kala muuqdaan details loo kala qaadaan yani warqad ugu hoose maarki kartid haday warqada kala ka sareeyaan soo ilaa taad qaadid maarki kartid waxa kale oo jira warqada khafiif ah jiro oo ka dhaxarki karto warqada ka hooseysa waxana loo yaqaan opacity uu leeyahay photoshopku xaga sare ku taala waxana ku qoran opacity imika hadaan naaqso circle ka akhtarka hoosta ka arkaysa hadii aan dalacana triangle-kii asaanka haba siis ku soo noqonay waxa kale oo jira wax loo yaqaan layer blended modes oo halka normal imikeena taagan oo ah si layeradu isu dhex galgalaan ama kalarada layers way ka koobayeen ay isu dhex galgalaan wana arki doonaa sida loo isticmaalo waxa kale oo jira wax loo yaqaan layer mask oo ah ka imka aynu dhigan doono oo ah wax layerka ku lamaan oo ah waxa yar halka yar ku jira fargeeska yar ku jira marka wuxuu tarayaa inaad sawirkaagi barka inta aad u baahan tahay mooyaan inta kala iska jirto amba layerkaagi inaad bar iska jirto adiga oo aan barka loose gareenin amba aanu ka lumeyn oo markaad u baahato aad soo ceshan karto adigoo isticmaalaya brushka iyo waxa loo yaqaan black and white wareeg doona waa yara sophisticated ama fahan dheeraad u baahan yahay laakiin sharaxi doona waxa loo yaqaan layer mask laakiin waxa jira kale layer kale oo kamid tahay adjustment layerku kamid yahay text layerku kamid yahay iyo waxa kale loo yaqaan folderska oo sida layerka kor u soo baxaya laakiin waa organized si wax badan ma taro waxaad ku organize karaysaa hadii imika PS daadu ay fara badan tahay oo design dheer oo qoraalo badan sawir badan ku jiraan oo ku organize karaysaa kolba dhinaca kolba qayb baad ku save karaysaa folderada waa for organizing maanta waxaan ku shaqeynaa marka sawirkan idin muuqda oo ah Faarax design gaar sameynayno markiisii ugu horeysay saaha marka ugu horeysay sawirkan furto soo noqonaya sawirkan saad u heshana waxa tagaysaa channelkeeni baad tagaysaa deetana tutorialka daawanaysid baad xaqiisa oo soo furaysaa deetana waxa ku soo baxaya show more waxa ku soo baxaya meesha ay ku qoran tahay show more deetana clicksi deetana ka download the sample image ku qoran tahay halkaas buu kugu jiraa videogan marka daawarso hoostiisa kugu jiraa sawirka markaad furto file open waan idin sheegaysaa sawirada loo furo file open baad leedahay waxa sawirkeena waxa rabaa sida design-ka hore ka muuqata xaa kale u jeedaa marka waxa rabaa in xaa kale u jeediyo marka saad arkaysan layerkeygan waxa ku xidhan log asaan ka furo laba jeer baan kala garanaya deetana okay baan siinaya markaas buu layerkii shaqeynaya hadana meesha layer all ama in waxba all waxa ku soo baxay waxa loo yaqaan checkerboard oo ah yaani layerkaaga waxa kama sii dambeeyaan amba waa transparent waxa loo yaqaano marka layerkii waxa ka keensanaya deetana tiga edit deetana tiga transform deetana right click baan siinaya deetana waxaan dooranaya waxa loo yaqaano flip horizontal waxa kale ugu jeedinaya okay baan siinaya deetana waxa ku xidhay waxa loo yaqaan log yar aan iskaga xidhanaya waayahay shaqada koobaad waxa weeyaan inaynu surwaalkiisa akhtar ka dhigno kabiisana ka dhigna akhtar waayay layer cusub aan sameysanayaa deetana waxaan ku qorayaa kan shoes baan ku qorayaa deetana waxaan tagayaa brushkeygii ama baan taabanayaa shortcut-ka color-kana kaasaan dooranayaa iska yar riyaha deetana ka yar baan dooranayaa uu ku soo baxaya markaad halkan ku dhufato color picker baa ku soo baxay deetana halka yar ku dhufo okay deetana yara akhtaraya waayay waxaan u baahanahay intaynaan akhtar ku buufin inaynu selection ku sameeyno waxaan tagayaa markaa xabada icon aan tagayaa deetana waxaan tagayaa quick selection halkan waxaan dooranayaa sample on imageski deetana saasan xaji mouse-kaaga si aad ugu buufisid saan kabtaas oo quraata u doorto saad arkaysaan deetana waxaan ku noqonayaa baadi xaji mouse-kaaga si aad ugu buufisid saad arkaysaan kabtii quraatan buufiyay waayahay waan arkayaa inay color akhtar tahay oo sax ahayn intii kale la waayay laakiin waa caadi aan ku noqdo hadana si select selection ka ku noqdo quick selection kabtina buufiyo mar labaad waayay deetana brushkan tago deetana akhtarka ku buufiyo good waayay markaan dhameeyna select deetana deselect deetana ka baabaya baasha ka baabaya waayay waxaan tagay marka horaan igu sheegay waxaan tagay wax loo yaqaan layer blended modes layers isku dhex galgalaan
ودور لاتن حبو داركن multiply color ugu hooseeya ku qoran hue ay ku qoran tahay yani colorkan yani colorka akhtarkan ku buufiyay sawirka ka hooseeya iyo dhexgeli oo haduu ku midab kala aha midabka ay ku bedel adigoo waxba ka bedelay maxay kabto sidahayd marka hore normal buu taagnaa laakiin marka hue baan ka dhigay is dhexgelinaa beautiful saas leeg waxaan surwaalkana saas oo kale aan buufino layer cusub aan sameysanayaa aan selection kan tagayaa surwaalkan dooranayaa halkan surwaalkan dooranayaa deetana waxaan tagayaa brushkii akhtar bayder noorka hore layer cusub aan ku jiraa ka xisaabtamaya okay good deetana markaan dambe waxaan tagayaa select deetana waxaan deselect deetana waxaan tagayaa hue baan dooranayaa alright okay surwaalkan akhtar baan ka dhigay okay haddaan markaa layerkii baktiyo you can see kanaashada sadarksan way waxa jira meelaha qaar kood baan ka iloobay aan soo dhaweeyo way brushka saan reer right click si deetana in yar saaw yare brushka akhtarka baan ku jiraa in yarna si yare waliba for baan ka dhigay meelaha ruudin ka tagay saasan u raacinay marka selection ka tagay sorry okay good alright koonayashan raacinaysan bas har way xaga la tago yar huruud xaga ku dhaxjirto sorry xaga la tago way good sida sawirkaygan hore ka muuqata inaan shayb yar akhtar soo galino xaga dambe laakiin si shayb akhtar soo galino waxaan u baahnaa inaan kan ku sameeyno wixii loo yaqaanay layer mask aynu Mo Farah goyno dabeetana aynu soo daba dhigno shaybkan rabnay marka waxaan isticmaalayaa waxa loo yaqaano object selection haddaba saan Mo Farah selection ugu sameeyo waxaan tagayaa keer baan qaaday deetana waxaan ku sameynayaa copy kale deetana waxaan tagayaa selection keygii deetana waxaan dooranayaa sawirkaan dooranayaa logaan ka saarayaa deetana waxaan tagayaa akan object selection key deetana waxaan leeyahay select subject yara sugaya markaa automatically wuxuu dooranayaa Mo Farah buu dooranayaa sida iga muuqata doortay Mo Farah buu doortay laakiin kabiisu caadi kabaha wada doortay alright marka in yar buu ka tagay aan ku noqdo halka blast aan doorto sorry blast yar aan doorto deetana saan ugu sawiro okay good fariisu caadi aan kala caadi okay good marka inta dhameeyo deetana waxaan dooranaynaa layer ka baan ku dhufanaynaa maxayga layer mask marka sawirka hoosaan baktiyo imika soo arkaysaan Mo Farah oo qaliya ayaa la haray good way sawirka hoosaan waan iska isticmaali karnaa baan u jeedaa waxaan tegaynaa markaa shape-ki triangle ka tegaynaa waxaan tegayaa markaa text-ka ka hooseeya oo shape deetana triangle kan dooranayaa fill-kan tegayaa deetana hal fill ma baahni halka mouse ka xijinaysa laga yaabo triangle yahay okay ka tiida ka hooseeya tegaysaa waxa xijinaysaa shape-kan ku soo baxaya waxaan tegaynaa triangle kan dooranaynaa deetana xagga saraan tegayaa fill-kan ma baahni baan leeyahay halka yar cross-kan ku dhufanayaa waxa la stroke-gan u baahanahay stroke-gan waxaan u baahanahay color-kan dooranayaa okay stroke noocaas aan u baahanahay waliba aan ku celiyay color-ka in yar daakan ka yar dhigo okay waxa leeyahay stroke marka stroke waxa weeyaan line weeyaan laakiin waxa leeyahay 200 line culays khadkiisu yahay ma raba waayahay waxaad samaysaa marka mouse-ka click si hasi deen click-ta xaji idana saa u soo jeed waxa kaloo inta aad click-ta haysid aad qabataa shift muhiim deetana saaqaad way of course wuxuu ka sareeyay marka Mo Farah ka sareeyaa deetana soo qaadanaa shaybkii waxaan geenaynaa Mo Farah hoostiisa yar soo jeedinaa kana rotation kana yar hadaan doono yar okay good waxaan sameynaa kale hadaba layer-kan ay nagu jirta Mo Farah kala xaga ku jira oo khafiifa kana qoraalba ku jira Mo Farah saddexaad laakiin waxa ka sii hooseeya triangle ku hooseeya way layer-keygana qaada layer mask kan ku sameeyay halkii red baan ku tuurayaa copy kale ka sameynayaa copy-ga soo qaad deetana waxa ka sii hooseeyay maxay triangle-kii ka sii hooseeyay deetana waxa tagta edit deetana transform control T way yar dib aan u baxo mas'uulta sida arkaysan marka deetana dib aan u yara jiido okay good sawirkayga hore hadaan ku noqdo sida arkaysan sawirkan waxa weeyaan kow waxa weeyaan waa khafiif number 2 waa black and white way seen uga dhignaa marka waxaan uga dhignaa waxaan tegaynaa marka koobaad soo dhaweysto opacity aan tegaynaa horta marka koobaad black and white ba ka dhignaa waxaan tegaynaa adjustment layer waan idin sheegay adjustment layer waxaas ku jiraan
waa halkii kalarada lagu kala bedelayay deetana ka ugu fudud baa qaadanaysaa ah inaan 10 fudud baan qaadanaynaay black and white automatically marka layerkaas wuxuu ku hooseeyaa intan ugu xiga deetana Mo Farah buu doortay black and white buu ka dhigay waayahay opacity Mo Farah baan dooranaa kii hoose deetana xigana ka dhiganaa aan khafiifinayna meelahaas waxaan ka dhiganaa 15 inta waxaan ku xigsiinaa qoraaladii okay so waxaan dhiganaa text kan dooranaa ka u sareeya xaga waxaan dooranaa fontkii noocay tahay deetana cabirkana waxaan dooranaa 25 sharp size ka ahaado fontkana waxaan dooranaa black deetana waxaan qoranaa marka click si hal mar deetana waxa ku soo baxaya fontka ay ku qoran tahay Lauren Ibsen deetana kadib markaa qor marka hore click si qoraal baa soo baxaya kadib markaa qoraalka bilaaw deetana qoray just enter si hadana do enter si deetana it qor markaad qoraalkaaga dhamaysana waxaad tagaysaa move toolka haddii ay fartaada hoosta iska hoos gasho waxaad tagaysaa window waxaad dhacaysaa in fartaada hoosta iskaga jirto deetana window character deetana waxa ku soo baxay fontka ku soo baxay halkan deetana halkaas laga yaabaa inay 6 yahay tahay marka auto ka dhig automatically waxaan tagnaa marka haddana textka haddana mar labaad ku noqonayaa garoy okay qoraalada aan dooranay deetana aan dooranay mid light xaqaas aan ku dhufanayaa deetana qoray Mo Farah baan ku qoray waayahay si select marka dhamayso afar gees ka soo jiid aan ku dhufan waay good marka inta dhamayno waxaan ku soo daranaa logadii ay lahayd shirkadda brandkeedu oo ahayd logada yare Nike soo furaya logadii Nike soo qaaday deetana drag and drop baan ku sameeyaa agaan soo jiidaya oo yareenaya alright marka logadu waa cadaan iyadana si select blending modes kan bedelayna deetana normal kuma ka bedelay deetana waxa ka dhigayaa multiply ma ka dhigayaa simple isma u dhaweeyaba background ka cadaan ka laga tuuro automatically logadii Nike bay noo saaraysaa waxoogaa deetana waxa ku sameeynaa marka waxa loo yaqaan color balance oo adjustment layers ku dhex jira deetana tagaya adjustment kii deetana tagaya color balance ka xagan iga soo baxaya properties ku soo baxaya dad properties ka xaga soo riixata wad kartaan baalka aad gashato waxaan tagay highlight ka oo ah cadaankiisa yaxas deetana waxa ka dhigaa in yar oo blue ku yar badanaya shadow kan tagay marka deetana in yar oo xogaa akhtarkan ku yar badanaya asaankana siyankana waxa ku yareynaya xagaas midtone-ka isagana siyankana waxa ka riixaya sidoo arkaysan saasoo ka dhigay hadaan waqtiyan shido opacity-giisana in yar baan ka naaqusay marka 55 kasaas waa marka hore saasan ka dhigna waayahay sad marka editing ka yarfud ban sameeyay layers ku barananay haddii uu ku adkaado amba wax su'aalaad qabtid waxaad ku reebi kartaa commentiga tutorial rosenbar waxa aan ku barananay wax loo yaqaan layers and layer mask adjustment layers kan ku barananay laakiin way noo soo socdaan tutorials kale ku saabsan adjustment layers ku khaliyata kan uu ku xiga laakiin ma waxaan fahmayno layeradaas la isku dul dhigayo iyo inaad fahanto layers waxay yihiin iyo layer mask waxay yihiin iyo wax loo yaqaan adjustment layers ka intaynu tutorialka ku xiga ku kuma doono waa Maxamed Xashwadi. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. channel kana subscribe saar. Thank you very much.